الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قدوانك شرفت له اللي معنا دمانتين وسلامتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan malaynayaa mowduucda maanta oo runtii ku kooban arrimaha xuquuqda isla markaana qayb kamid ah kulay cutubka kamid ah wax badan baa laga hadlay meelo badan oo runtii hore looga hadlayna aad baan runtii iskugu waafaqsanahay anigu waxaan ka eegayaa toosin yar oo kooban kulay oo aan badnayn haddii aan ku bilaabo qodobka 10aad karaamada aadamaha ah faqradda 3aad waxaa qoran qofna lama adoonsan karo xoogna laguma shaqaysan karo lagamana ganacsan karo shaqana laguma qasbi karo waxa soo noqnoqotay xoogna looguma shaqaysan karo shaqana laguma qasbi karo marka labadii way macna kaliya uun bay bixinayaan marka in la soo celiyay waxa la ka haboon in hal mar qura loogu dhawaaqo la yiraahdo qofna lama adoonsan karo xoogna xaga xoogga in la yiraahdo loogama raadin karo midalan xoog oo wax qasaba lagama keeni karo lagamana ganacsan karo shaqana laguma qasbi karo ujeedo kasta ha laga lahaadee marka arinta soo noqnoqotay ee shaqada in oo looguma shaqaysan karo in laga saaro oo shaqana laguma qasbi karo kaliya ay markaas ay noqoto maxaa yeelay qofka haddii uu ikhtiyaarkiisa ku shaqaynayn qof xoog loogu shaqaysto noqona qodobka 11aad sinaanta ka hadlaya faqradda 1aad muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan lagu kala loo eegin baa qoran ereyga takoor baa soo noqnoqday marka iyada lafteedana waa la toosin karaa waxaa la odhan karaa iyadoo aan lagu kala takoorin labiyo dhidigii asaas oo kale ayaa la odhan karaa waxaa kaloo soo noqnoqday ereyga qabiil dhalasho iyo isir intaasiba way isku wada dhow yihiin marka inuu qaarkood la qaato oo waxaan haddii overlapping badan isku noqdaan waxa way macno badan ma sameynayaan marka ama hal la yiraahdo dhalasho iyo isir hal la yiraahdo ama midkii lagu daayaaba ama qabiil iyo isir ba hal la yiraahdee waxaan isleeyahay saddexda erey isma wada qaadan karaan waan ku waafaqsanahay in arinta kala takoorka diin ah in laga saaro meesha waan runtii waa ku waafaqsanahay haddii aan u gudbo faqradda 3aad waxaa qoran waa inaan loo arkin shuruucdu ma qorto inaanan loo arkin qofku inuu arka maaha in la yidhaahdo saasoo kale loo dhigo maaha waxa weeye waa in meesha inaana takoor ahaynba la qeexo soo maad garan oo la yidhaahdo fal takoorid ah ma noqonayaan barnaamijyada dowladda ee loo qorsheeyey in sinaan buuxda lagu gaarsiiyo qaybo bulshada ka mid ah oo ku sugan xaalad dib u dhacsan marka barnaamijyada qaarkood baa lagu moogtahay markii uu dadku geediga horumarka la wada jaan qaado dad baa dib u hadhaya marka barnaamijyo la isku soo gaarsiiyo waa in la helo مثلا daryeelka caruurta iyo dhallaanka iyo hooyada dadka da'da weyn leh waxa soo dhan moogta hadii barnaamijyo gaar ah loo sameeyo lagu soo gaarsiiyo daryeelkooda iyo horumarkooda lagu soo gaarsiiyo takoor maaha markaas in marka barnaamijyada waxaan u yidhi fal takoorida ma noqonayaan barnaamijyada dawladda marka sida shuruucda iyo hab siyaasadeedka iyo hab maamuleedka iyo waxa macno weyn ma sameynayaan barnaamijyada dawladda ayaa ku filan ee loo qorsheeyay in sinaan buuxda lagu gaarsiiyo qaybo bulshada ka mid ah lagana saaro dad ama kooxo hore loo takoori jiray maxaas in laga saaro inagu ma lihin dad hore loo takoori jiray oo saasoo kale dib u dhacaas noocaas uu ku jiro waxa weeyaan qaybo bulshada ka mid ah oo ku sugan xaalad dib u dhacsan
in muxuu ahaay horumar la gaarsiiyo taasunbaa muhiima waxaa kaloo iyadna runtii qodobka muxuu ahaay 12aad waxaan muxuu ahaayey waxa qoran faqradda koowaad hay-adaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleedba xisbiyada siyaasadeed urur kasta oo gaar loo leeyahay ururka gaar looma yeesho ururku waa wax ummad ka dhaxeeya weeye oo dad ka dhaxeeya marka in la yidhaahdo hay-ad kasta oo gaar loo leeyahay hay-adaha iyo moogtahay ee kambaniyadaba gaar loo yeelan karaaye haddii bulsho ay wax ku ururto wax gaar markaasi muxuu ahaayey markaasi muxuu ahaayey uma muuqdo marka waxaan odhan lahaa hay-ad kasta oo gaar loo yahay marka inay u hogaansam leeyahay iyo qof kastaaba waa inay u wada hoggaansamaan mar kasta xuquuqda aasaasiga iyo xorriyaadka lagu aqoonsaday cutubkan waxaan odhan lahaa inay u hoggaansamaan xuquuqda maaha inay u hoggaansamaan mar kastaba dhowrista xuquuqda waa inay noqdaan dhowrista xuquuqda inay u hoggaansamaan laakiin inay xuquuqda u hoggaansamaan maaha micnaheedu waxaa kaloo faqradda labaad oran dowladdu waa in ay mar walba muxuu ahaa ilaalisaa muxuu ahaayey damaanad qaadaa hirgelinta iyo ku dhaqanka xorriyaadka iyo xuquuqda aasaasiga ah waxaan runtii inay xukuumaddu damaanad qaado ilaalinta waa inay damaanad qaado waxay damaanad qaadaysaa waa ilaalinta weeye waa inay mar kasta ay xukuumaddu damaanad qaadaa ilaalinta iyo hirgelinta ku dhaqanka xorriyaadka kelmadda xorriyadna mararka qaarkood xorriyad baa soo noqotay marna xorriyad qodobada waxaa ku qaran xorriyad oo ah haddana dhexda waxaad ka arkaysaa xorriyad oo u ah marka in muxuu ahaay xorriyad la iswaafajiyo waa mid muhiima iyada lafteeda waxaa kaloo muxuu ahaayey runtii haddii aan u gudbo muxuu ahaayey madaxa labaad ee xuquuqa iyo xorriyaadka qodobka muxuu ahaa xaqa nolosha waxaan ku waafaqsanahay kolley sidii muxuu ahaa loo yidhi oo muxuu ahaayey arrinta ah soo rididda ilmuhu waa arrin ka soo horjeeda shareecadda islaamka waana reeban tahay haddii la yidhaahdo soo rididda ilmuhu waa reeban tahay baa ku filan keliya waa reeban tahay because muxuu ahaa dastuurka oo dhaniba sharciga ayuu muxuu ahaa shareecada ayuu markaasi u khuduucayaa haddii aysan jirin waan ku waafaqsanahay xildhibaanka yidhi runtii xaalad caafimaad oo weliba maaha guddi dhakhaatiire dhakhtar awood u leh maaha dhakhtar lagu kalsoon yahay kalsoonidu waa wax qalbiga moog marka dhakhtar awood ama aqooneed ama sharci u leh aqoon sharci awooddu waa mid aqooneed iyo mid sharciba u haystaa inuu moogta arrintaa uu sameeyo qodobka 14aad xorriyadda nabadgelyada iyo qofnimada waxaa muxuu ahaayey qoran qof kasta wuxuu xaq u leeyahay amniga qof ahaantiisa iyo hantidiisa qofna looma geysan karo qaab kasta oo jirdil ah ama fal bani aadamnimada ka baxsan ereyga fal bani aadamnimada ka baxsan wax la qiyaasi kara maaha marka sidaa darteed meesha kuma habboona muxuu ahaay fal jildilu moogta in la sameeyo waxaana reeban moogta inta kale waa okay weeye qodobka 15aad xorriyadda ka mid noqoshaha qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro inuu abaabulo ama ku biiro koox ama dad kale halka kaliya laga odhan lahaa koox ama moogtay dad kale moogtay noqon karaa markaas sida masalan sida ururo shaqaale xisbiyo siyaasadeed wuxuu kaloo xor u yahay inuusan cidna ku biirin intaasi looma baahnaan u leh waxa lagumana khasbi karo inuu cid kale ku biiro taasaa ku filan mar haddaanan cidina ku khasbi karin mugta inuu cid kale ku biiro dee xor buu yahay muxuu ahaa inuuna cidba ku biirin xor buu yahay automatically bay iskaga muuqataaba marka uma baahna in muxuu ahaa taas lasii bayaamiyo qodobka 19aad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo kulamo ama banaanbax oo lagu muujinayo si xasilooni ah cabasho ama taageero iyadoo aan ogolaansho
muxuu ahaayey lagu xidhin baan odhay iyadoon muxuu ahaa ogolaansho loo baahnayn baa qorayd iyadoon ogolaansho lagu xidhin samaankan ayaa kaga habboon si waafaqsan xeerarka waxaa qoran jamhuuriyadda waxaa fiican xeerarka dalka qodobka waa qodobka 19 faqradda koowaad ayaan ka hadlayaa waxaa qornaa muxuu ahaayey qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo kulamo ama banaanbax samaan garan loogu muujinayo si xasilooni ah macnaha cabasho ama taageero iyadoo aan ogolaansho aan waxaa lagu xidhin loo baahnayn baa meesha qornay si waafaqsan xeerarka dalka baan nidhi dalka jamhuuriyadda baa qoray jamhuuriyadda xeerarka jamhuuriyadda ma qor xeerarka dalka mugtiya qodobka 20aad xorriyadda isu socodka iyo deganaanta waxaan isleeyahay faqradda koowaad qof kasta oo dalka sifo sharciga ku jooga wuxuu xaq u leeyahay inuu dego meesha uu rabo kuna dhex socon karo dalka gudihiisa si xor ahna uga bixi karo dalka goortii uu doono aad moogtahay arrinta ah si xorna uga bixi karo markii uu doono waxay muxuu ahaa ku caddahay faqradda 2aad markaas soo celcelinteed iyada lafteedu ma habboona maxaa yeelay faqradda 2aad baa waxay dhahaysaa muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu si xorriyada u soo gali karo uga bixi karo baasaboor qaadan karo marka faqradda koowaad inaad ku sheegtaa runtii muxuu ay noqonaysaa un ku soo celcelin ayay u baahan tahay wa salaamantiin